munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay xarunta cusub ee shirkadda Unigas ee iibisa gaasta iyo qalabka cunnada lagu karsado ka furatay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo ayaa waxa ay ka qabsoontay hotel Sanaag ee magaaladaasi. Munaasabadan oo ay mid si weyn loo soo agaasimay isla markaasina bulshada degmada Ceeri Gaabo iyo guud ahaanba gobolka Sanaag loogu sheegayay inay ka heli doonaan qalab tayadiisu sareyso kaasi oo sahli doona in lagaga maarmo dhuxusha haatan guryaha lagu shito ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Sanaag iyo kan degmada Ceeri Gaabo xildhibaano boqorro cuqaal aqoon-yahan haween iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeynba munaasabadan lagu daafurayay xafiiska Unigas ee ku yeelan doonto magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo ka hadlay maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur sida ogtiin waxaynu ku jirnaa dalkeennii xaalufin dhirtii lala dagaalamayo oo la gubayo waynu qaadsi ka joogno oo banaankii markii la soo mariyay buurta la marayo runtii waa dhibaato aafah waynu ognahay maanta ilaahay wuxuu nadra Umar ku ilhaamiyay inay noo keento bibigas dhowr nooca oo kala saajada aad iyo aad baynu ugu baahnayn si ay noo ku nasato dhirtii iyo gubniinkii faraha badnaa haddii qof wax horumar keeno inaynu dhiirigelinayno waajiba intaasi kadibna waxa faahfaahin ka bixiyay xafiiska shirkadda Unigas ka furatay magaalada Ceeri Gaabo maamulaha shirkadda Unigas ee gobolka Sanaag Nadra Umar Jabaabul laakiin malaha wax hirgeliya ayadan arkin dadku waxay yiraahdaan Ceeri Gaabo ma qaadanayaan laakiin way qaadanayaan haday helaan business rangareynaya oo marwalba helayaan gaastooda marka waxaan idin keenay ku karadii waxaan idin keenay gaastii hadaan nahay company-ga Unigas waxaan idinku ballan qaadaynaa inaana idinka go'in marnaba gaasto idinkana gacmo fur baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan idinku soo dhaweynaynaa price aad u wanaagsan oo idin raali gelin doona idinkuna ina qaado goobtaasi hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira isduwayaal xildhibaano boqorro haween aqoon-yahan iyo mas'uuliyiin kale kuwaasi oo shirkadda Unigas ku amaanay doorka bannaan ee ay buuxisay bulshadana ugu baaqay inay dhuxusha ka maarmaan waa afad ballaaran oo jirta bil xaqiiqa ayaa jirta oo gobolka ka taagan afada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wixii laga gudbi lahaa talaabooyinkii loogu talagalay laga gudbi lahaa iyadoo muddo laga shaqeynayay waxaan ku rajaynaynaa maanta tan aad iyo aad baa diraasad lagu sameeyay juhdi badan baa ku baxay khayr Allah siiyo aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa dadkii hawsha ka qayb galayna si ugu horeyso tani markaa waxay badiil u tahay dadkii ku marmarsiyoonaya dhuxul baan shidanaynaayo dhuxusha lagama maarmo ayay u noqonaysaa in lagu bedelo wixii dhuxusha tan in lagu bedelo tada saacad gudaheed inay ku bislayso oo labadan dhinac ay wax kala saarto aroortii oo kale xaggan shaahay saaraysa xaggana daaway saaraysa ama beerkii bay halkan odayga ugu qalaynaysa xaggana shaahi bay saaraysa mashruucan qiimaha iyo qaayaha leh ee Unigas ee horumarka ay waxtarka ah ee gobol ku soo kordhay marka hore aniga ku hadlay afka madax dhaqameedka gobolka iyo shacabka reer Sanaag waa soo dhaweynaa online maanta waxa ayaan ugu faraxsanahay inay maanta gobolkeennii keentay technology cusub oo aynu kaga maarmayno aafadii dhuxusha waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaanu nahay reer Ceeri Gaabo waayo waxa weeye baahida dhulka iyo dadka iyo tay qamar sheegaysay inta waxbay ka qabanaysaa weeyaan waa ogtiina dhuxusha waxba la soo cabaynaya xashiish iyo qiiq maanta dhuxul caadi ah lama keeno waxaan leeyahay yabaaline kala yeelo kala Unigas maanta ila gado gabagabadiina gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay ayaa ka hadlay munaasabadan isaga oo sheegay in shirkadda Unigas keentay qalab loo baahnaa idinku gudbinaya dhirta inaad joojisaan baa aad iyo aad leedika doonaya in mar labaad inanta bashaarada inoo keentay mashruucan Unigas daanu ka iibsano dikala socon mayso ha soocay kaba mustacidiin ma nahay inaynu wada iibsano mustacidiin soo manihim qalabka shirkadda Unigas keentay magaalada Ceeri Gaabo ayaa mid ka degdegsiinyo badan dhuxushii hore loo shidan jiray haddaba xafiiska Unigas waxa uu ku yaalaa dhanka bari ee wadada marta maqaaxida xeela waxaana uu boorkeedu ka qaban doonaa dhanka waqooyi madiil sar shabakada caalamiga Harwanaag magaalada Ceeri Gaabo